kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba meel kastoo aad joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan xogihii ugu xasaasisanaa ee naga soo gaaray Soomaaliya. Qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid noqonaya Mareykanka oo cunaqabateynta ka qaadaya Soomaaliya kadib tallaabadii uu qaaday madaxweynaha Soomaaliya. Jubbaland oo sheegtay inaysan ka qaybgali doonin shirka lagu dhameystirayo hannaanka doorashada. midowga musharaxiinta Soomaaliya oo shaaca ka qaaday inay ka guuleysteen madaxweyne Farmaajo sababna ay u ahaayeen inuu ka laabto go'aanka muddo kordhinta. qodobada kale waxaa ka mid noqonaya ergaga Qatar ee Soomaaliya iyo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo kulan qarsoodi ah ku yeeshay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. qodobadaas iyo qodobo kale aan idin qarinayo ayaa saaxiibayaal idinkuga haya xogihii ugu waaweynaa ee naga soo gaaray Soomaaliya. Ramadaan Kariim ayaan idin leeyahay ee ku soo dhawaada mar kale iyo xogihii ugu xasaasisanaa ee naga soo gaaray Soomaaliya. waa tahay isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leeyahay saaxiibayaal. haddii aan ku bilaabo dowladda Mareykanka ayaa waxa ay soo dhaweysay go'aanka ay qaateen golaha shacabka Soomaaliya iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee looga tanaasulay muddo kordhinta kadibna dib loogu laabanayo heshiiskii 17 Sebtembar waxaana ay ballan qaaday inay gacan ka geysanayso qabashada doorashada dalka. wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday dhammaan dhinacyada ku lugta leh heshiiskii 17 Sebtembar inay si degdeg ah u kulmaan iyada oo aan lagu xireenin wax shuruudo ah. dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay haddii dhammaan ballamahaas la oofiyo in dowladda Soomaaliya ay ka qaadi doonaan dhammaan cunaqabateynta ay ku soo rogeen. xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si aqlabiyad leh shalay waxay ku ansixiyeen codsigii uu hor keenay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ahaa in dib loogu noqdo heshiiska doorashada ee 17 Sebtembar. gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka codsaday xildhibaanada in cod gacantaag ah loo qaado codsiga madaxweynaha waxaana codsiga madaxweynaha aqbalay guud ahaan xildhibaanadii kulanka ka soo qayb gashay oo 140 xildhibaan gaarayay. hase yeeshee dowladda Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in cunaqabateynta haddii dowladda Soomaaliya ay ka qaadayaan ay tahay muhiimadda in ay oofiyaan dhammaan ballamada ay ku heshiyaan oo ah in dalka doorasho laga qabto sida ugu dhaqsiyaha badan iyadoo la tixgelinayo heshiiskii 17 Sebtembar. hase ahaatee dowladda Mareykanka ayaa waxa ay hoosta ka xariiqday haddii ballamahaasi la oofin waayo ay ballanta iyo sidoo kale cunaqabateynta meesheeda ay ahaan doonto. lama oga go'aankaasi culus dowladda Mareykanka ay ka qaadatay Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda Soomaaliya qaabka ay u oofin doonto ballamahaasi aadka u adag ee la hordhigay. dhinaca kale xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa mar kale war ka soo saaray xaaladda Soomaaliya gaar ahaan ismarwaaga ka taagan arrimaha doorashooyinka dalka ee lagu wado in ay dhacaan sanadka 2021. xogayaha ayaa ugu horreyn shaaca waxa uu ka qaaday inuu soo dhaweynayo tallaabadii ay shalay qaadeen xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo go'aamiyey in dib loogu laabto heshiiskii 17 Sebtembar si dalka looga saaro xiisadaha ka dhashay muddo kordhinta. xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu soo dhaweynayaa go'aanka aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka uu ka ansixiyey ku laabashada heshiiskii doorashooyinka ee 17 Sebtembar ayaa lagu yiri bayaan uu soo saaray afayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay. afayeenka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegay in Antonio uu ugu baaqay dhinacyada Soomaalida in ay ka wada shaqeeyaan xasiloonida dalka isla markaana ay dib ugu laabtaan wada hadaladii doorashooyinka. sidoo kale waxa uu xogayuhu intaasi ku daray in qaadashada go'aankan uu badbaado u yahay xasiloonida Soomaaliya si looga baaqsado qalalaaso hor leh oo ka dhaca dalka. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo mar kale xildhibaanada golaha shacabka ay u codeeyaan in laga laabto muddo kordhintii 2 sano aheyd ee loo sameeyay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday laguna noqday heshiiskii 17 Sebtembar oo caqabad weyn ay ku noqdeen maamulada Puntland iyo Jubbaland. si kastaba Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay wajahaysay xaalad cakiran kadib markii dagaalo u dhaxeeyay mucaaradka iyo dowladda ay ka dhaceen magaalada Muqdisho. hadalka xogayaha guud ayaa sidoo kale waxaa loo qaadan karaa haddii ay dhaqan geli waayaan madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada in Soomaaliya cunaqabateen midda hadda la saaray mid ka weyn ay wajihi karto sida ay sheegayaan khubaro dhanka siyaasadda ka faalooda. wararka siyaasadda ayaan ku guda jirnay wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland Engineer
cabdi xuseen sheekh maxamed ayaa waxa uu ka hadlay go'aankii madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday oo shalay uu shaaciyey in doorashada dalka iyo amnigeeda uu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha xilka sii haya ee maxamed xuseen rooble. wasiirka ayaa shaki weyn geliyey go'aanka farmaajo waxaana uu shaac ka qaaday in jubbaland aysan aamini doonin ilaa uu si buuxda u wareejiyo dhammaan arrimaha siyaasadda madaxweynaha Soomaaliya ayuu yiri wasiirka wasaaradda warfaafinta. hadalkaasi oo ka dhigan in jubbaland aysan ka qayb gali doonin shirka madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku baaqay. sidoo kale waxa uu si gaar ah carabka ugu dhuftay in weli hawl qabyo ah ay tahay wareejinta uu sameeyey madaxweynaha madaxweynaha dhammaaday ee maxamed cabdullaahi farmaajo. sidoo kale wasiirka warfaafinta ayaa intaasi ku daray in farmaajo ay u laaban tahay gacan gadaal, taasi oo ula jeedo in uu weli markaasi howlihii uu ku carqaladeynayay arrimaha jubbaland uusan weli ka tanaasulin. maamulka jubbaland ayaa sidoo kale waxa ay weli ku adkeysanayaan in go'aankii gobolka Gado meeshiisa uu yahay. sidoo kalena shirkan haatan uu ku baaqay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo shakiga ay gelinayaan jubbaland aysan ka qayb gali doonin. ugu dambeyn waxa uu hoose ka xariiqay in jubbaland ay soo dhoweynayso in hogaaminta doorashada loo gacan geliyo rooble, balse ay tahay in si dhammaystiran loogu wareejiyo, taasi oo ka dhigan in weli ra-iisul wasaaraha aan gacanta loo gelin dhammaan awoodihii madaxweynaha Soomaaliya. waxaana arrintan ay caqabad ku noqon doontaa shirka loo balansan yahay ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku baaqay, kaasi oo ay ka qayb gali doonaan madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya. dhinaca kale midowga musharaxiinta ayaa waxa ay soo dhoweeyeen go'aankii uu baarlamaanka Soomaaliya dib uga noqday muddo kordhintii loo sameeyey madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday ee maxamed cabdullaahi farmaajo. midowga musharaxiinta ayaa sidoo kale waxa ay soo dhoweeyeen in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen rooble uu si buuxda ula wareegay maamulka iyo amniga doorashada dalka. midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa soo saaray warmurtiyeed waxaana ay sheegeen inay diyaar u yihiin in ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ay kala shaqeeyaan qabsoomidda doorasho xor iyo xalaal ah islamarkaana ku dhacda wakhtiga ugu dhow ee macquulka ah. mas-uuliyiinta golaha ayaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ugu baaqay in dhexdhexaad uu ka noqdo arrimaha doorashooyinka, uusan la safan dhinac ka mid ah dhinacyada ku tartamaya doorashada la filayo in Soomaaliya ay ka dhacdo. dhinaca kale midowga ayaa xukuumadda xilgaarsiinta u soo jeediyey in ay magacoodo hoggaan mideyn kara ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya, waxayna taasi sabab uga dhigeen in ciidamada ay ku kala qaybsameen diidmada iyo sidoo kale difaaca muddo kordhintii uu baarlamaanka u sameeyey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. sidoo kale mas-uuliyiinta midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa waxa ay sheegeen in madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ay ka adkaadeen, iyagoo tusaale u soo qaatay in uu haatan ka laabtay muddadii 2 sano ah ee sida sharci darrada ah loogu kordhiyey. hase ahaatee lama oga warkan ka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka ee ah inay ka adkaadeen madaxweyne farmaajo iyo dowladda waxa ay ka dhihi doonto saacadaha soo aadan. wararka naga soo gaaraya garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cusmaan aadan cadde ayaa sheegaya in shalay kulan qarsoodi ah ay ku qaateen ergeyga Qatar ee Soomaaliya iyo sidoo kale taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. labada mas-uul ayaan la ogeyn ilaa iyo haatan waxyaabaha rasmiga ah oo ay ka wada hadleen, hase ahaatee warar hordhaca oo bahda TV ay ka heshay kulankaasi ayaa sheegaya in labadaasi mas-uul ay ka wada hadleen arrimo ku saabsan sirdoonka Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada dowladda Soomaaliya ay horay ugu qaaday dalka Qatar, kuwaasi oo ilaa iyo haatan ku maqan tababarkii dowladda Soomaaliya ay u dirtay. ciidamadaasi ayaa la sheegay in ay ku sugan yihiin dalka Qatar oo ay ka howlgalaan si caadiyan, islamarkaana ay ka tirsan yihiin ciidamada markaasi u dhashay dalka Qatar ee howlgallada inta badan ka sameeyay waddankooda. sidoo kale taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa la sheegay in ergeyga uu ka codsaday arrimo ku saabsan in laga gacan siiyo dhanka sirdoonka iyo sidoo kale in la tayeeyo ciidamada dharcadka ee ka howlgala magaalada caasimadda ee Muqdisho, kuwa oo haatan uu sheegay inay u baahan yihiin tababar iyo sidoo kale xirfado gaar ah oo ay markaasi howlahooda ku gutaan. warar intaasi ka baxsan lagama heli karo kulanka qarsoodiga ah oo ay yeesheen taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo sidoo kale ergeyga Qatar ee arrimaha Soomaaliya.
guud ahaanna waa naga intaa xogihii ugu waaweynaa inaga soo gaaray Soomaaliya oo aad kala socoteen bahda TV waqti wacan ayaan idin rajeynayaa Ramadaan Kariimna waan idin leeyahay